dowladaha Soomaaliya iyo Mareykanka ayaa ka wada hadlay sidii ay u xoojin lahaayeen xiriirka ka dhaxeeya labada dowladood. Ikraan Shire ayaa warkan inoo faahfaahinaysa. Kusimaha Safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee dalka Itoobiya ahna Qunsulka Safaaradda Ambassador Cali Maxamed Xuseen Atam ayaa xafiiskiisa Addis Ababa ku qaabilay safiirka dowladda Mareykanka ee Itoobiya Ambassador Jessica Lebnen. Labada mas'uul ayaa isfahan ka gaaray arrimaha ay ka wada hadleen, waxaana Ambassador Atam uu sheegay Ambassador Lebnen in dowladda Soomaaliya ay muhiimad gaar ah siinayso xoojinta xiriirka kala dhaxeeya dowladaha caalamka, gaar ahaan dalka jecel inay qayb ka noqdaan horumarka iyo kobcinta dowladnimada Soomaaliya oo ay ka mid tahay dowladda Mareykanku. Ambassador Lebnen ayaa dhankeeda ka mahadcelisay soo dhaweynta diiran ee habmaamuuskeedu sareeyo oo ay kala kulantay diblomaasiyiinta Soomaaliyeed ee horumarkooda u ah Safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Itoobiya, iyadoo cadeysay in dowladda Mareykanku ay dhankeeda diyaar u tahay kor u qaadista xiriirka labada dowladood. Labada mas'uul waxaa kulankooda ku wehelinayay xoghayaha koobaad Cabdulaahi Cabdirasaaq iyo qaybsamaha ganacsiga Mustafa Mahdi ee Safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Addis Ababa. Sidoo kale waxaa kulanka ka qayb galay qaybsanaha militariga Safaaradda Mareykanka ee Addis Ababa